Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan muuqaalkeena maanta ku yara kor istaagi doonaa hadduu ilaahay raalli ka ahaado ereybixinta loo isticmaalo cilmu nafsiga ama psychology-ga inagoo dhowr xabo ka soo qaadan doono. Midda koowaad waxaa weeye analgesia wax la yidhaahdo. Macnaheedu wuxuu yahay qofku inuu naftiisa aad u jeclaado isla markaana uu iscajabiyo. Iscajabiskaasina ay noqoto mid xadkeedii iyaduna dhaaftay. waa midda koowaad. Midda labaad waxay tahay la yidhaahdo al-ananiya ama selfish waxa loo yaqaano. Macnaheedu waxay tahay in uu qofku ka fikira keliya asagoo dantiisa shakhsiyadeed ama gaarka ah isagoo aanad dan ka gelin dadka kale xaaladahooga. waa midda labaad. Ta saddexaadii waa albaraanuya. Macnaheedu wuxuu yahay in uu si joogto ah qofku dadka uga shakiyo isla markaana uu aamino in qof kasta oo bulshada ama dadka ka mid ah uu rabo inuu asaga dhibaato u geysto. Midda afraad waxaa la yidhahdaa alwaswaas alqahri. waxaa weeye macnaheedu wuxuu yahay afkaarta soo laalaabata ee qofka dhibka u geysata isla markaana qofka ku qasabta in uu sameeyo ficilo gaar ah si uu walwalkaas uu isaga yareeyo. Midda shanaad ee ugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa al-isdiwaajiya. Macnaheeduna wuxuu yahay qofku inuu awood u yeesho in uu isu muujiyo laba weji oo kala duwan marka loo eego marba asagu go'aanka u qaadanaya. Bimacnaa waa qof awood u leh wejiguu rabo inuu kuula yimaado. Mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof wadaada, mar wuxuu isaga kaa dhigayaa shaydaan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariis badan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariisuba agtiisa aan loogu imanin. Xaaladahaas qofku uu samaynayana wuxuu ku saleeyaa marba asaga mawaaqifta ama xaaladaha uu rabo markaa inuu isu muujiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan muuqaalkeena maanta ku yara kor istaagi doonaa hadduu ilaahay raalli ka ahaado ereybixinta loo isticmaalo cilmu nafsiga ama psychology-ga inagoo dhowr xabo ka soo qaadan doono. Midda koowaad waxaa weeye analgesia wax la yidhaahdo. Macnaheedu wuxuu yahay qofku inuu naftiisa aad u jeclaado isla markaana uu iscajabiyo. Iscajabiskaasina ay noqoto mid xadkeedii iyaduna dhaaftay. waa midda koowaad. Midda labaad waxay tahay la yidhaahdo al-ananiya ama selfish waxa loo yaqaano. Macnaheedu waxay tahay in uu qofku ka fikira keliya asagoo dantiisa shakhsiyadeed ama gaarka ah isagoo aanad dan ka gelin dadka kale xaaladahooga. waa midda labaad. Ta saddexaadii waa albaraanuya. Macnaheedu wuxuu yahay in uu si joogto ah qofku dadka uga shakiyo isla markaana uu aamino in qof kasta oo bulshada ama dadka ka mid ah uu rabo inuu asaga dhibaato u geysto. Midda afraad waxaa la yidhahdaa alwaswaas alqahri. waxaa weeye macnaheedu wuxuu yahay afkaarta soo laalaabata ee qofka dhibka u geysata isla markaana qofka ku qasabta in uu sameeyo ficilo gaar ah si uu walwalkaas uu isaga yareeyo. Midda shanaad ee ugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa al-isdiwaajiya. Macnaheeduna wuxuu yahay qofku inuu awood u yeesho in uu isu muujiyo laba weji oo kala duwan marka loo eego marba asagu go'aanka u qaadanaya. Bimacnaa waa qof awood u leh wejiguu rabo inuu kuula yimaado. Mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof wadaada, mar wuxuu isaga kaa dhigayaa shaydaan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariis badan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariisuba agtiisa aan loogu imanin. Xaaladahaas qofku uu samaynayana wuxuu ku saleeyaa marba asaga mawaaqifta ama xaaladaha uu rabo markaa inuu isu muujiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan muuqaalkeena maanta ku yara kor istaagi doonaa hadduu ilaahay raalli ka ahaado ereybixinta loo isticmaalo cilmu nafsiga ama psychology-ga inagoo dhowr xabo ka soo qaadan doono. Midda koowaad waxaa weeye analgesia wax la yidhaahdo. Macnaheedu wuxuu yahay qofku inuu naftiisa aad u jeclaado isla markaana uu iscajabiyo. Iscajabiskaasina ay noqoto mid xadkeedii iyaduna dhaaftay. waa midda koowaad. Midda labaad waxay tahay la yidhaahdo al-ananiya ama selfish waxa loo yaqaano. Macnaheedu waxay tahay
in uu qofku ka fikira keliya asagoo dantiisa shakhsiyadeed ama gaarka ah isagoo aanad dan ka gelin dadka kale xaaladahooga. waa midda labaad. ta saddexaadii waa albaranuya. macnaheedu wuxuu yahay in uu si joogto ah qofku dadka uga shakiyo isla markaana uu aamino in qof kasta oo bulshada ama dadka ka mid ah uu rabo inuu asaga dhibaato u geysto. midda afraad waxaa la yidhahdaa alwaswaas alqahri. waxaa weeye macnaheedu wuxuu yahay afkaarta soo laalaabata ee qofka dhib ka u geysata isla markaana qofka ku qasabta in uu sameeyo ficilo gaar ah si uu walwalkaas uu isaga yareeyo. midda shanaad ee ugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa al-isdiwaajiya. macnaheeduna wuxuu yahay qofku inuu awood u yeesho in uu isu muujiyo laba weji oo kala duwan marka loo eego marba asagu go'aanka u qaadanaya. bimacnaa waa qof awood u leh wejiguu rabo inuu kuula yimaado. mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof wadaada, mar wuxuu isaga kaa dhigayaa shaydaan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariis badan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariisuba agtiisa aan loogu imanin. xaaladahaas qofku uu samaynayana wuxuu ku saleeyaa marba asaga mawaaqifta ama xaaladaha uu rabo markaa inuu isu muujiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan muuqaalkeena maanta ku yara kor istaagi doonaa hadduu ilaahay raalli ka ahaado ereybixinta loo isticmaalo cilmu nafsiga ama psychology-ga inagoo dhowr xaba ka soo qaadan doono. midda koowaad waxaa weeye anergesiya wax la yidhaahdo. macnaheedu wuxuu yahay qofku inuu naftiisa aad u jeclaado isla markaana uu iscajabiyo. iscajabiskaasina ay noqoto mid xadkeedii iyaduna dhaaftay. waa midda koowaad. midda labaad waxay tahay la yidhahdo al-ananiya ama selfish waxa loo yaqaano. macnaheedu waxay tahay in uu qofku ka fikira keliya asagoo dantiisa shakhsiyadeed ama gaarka ah isagoo aanad dan ka gelin dadka kale xaaladahooga. waa midda labaad. ta saddexaadii waa albaranuya. macnaheedu wuxuu yahay in uu si joogto ah qofku dadka uga shakiyo isla markaana uu aamino in qof kasta oo bulshada ama dadka ka mid ah uu rabo inuu asaga dhibaato u geysto. midda afraad waxaa la yidhahdaa alwaswaas alqahri. waxaa weeye macnaheedu wuxuu yahay afkaarta soo laalaabata ee qofka dhib ka u geysata isla markaana qofka ku qasabta in uu sameeyo ficilo gaar ah si uu walwalkaas uu isaga yareeyo. midda shanaad ee ugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa al-isdiwaajiya. macnaheeduna wuxuu yahay qofku inuu awood u yeesho in uu isu muujiyo laba weji oo kala duwan marka loo eego marba asagu go'aanka u qaadanaya. bimacnaa waa qof awood u leh wejiguu rabo inuu kuula yimaado. mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof wadaada, mar wuxuu isaga kaa dhigayaa shaydaan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariis badan, mar wuxuu isaga kaa dhigaya qof naxariisuba agtiisa aan loogu imanin. xaaladahaas qofku uu samaynayana wuxuu ku saleeyaa marba asaga mawaaqifta ama xaaladaha uu rabo markaa inuu isu muujiyo.